رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. kusoo dhawaada walaalayaal xalaqad sagaalaad xalaqad cusub ee barnaamijkeeni tababarka nolosha guurka. mar kaleeto oo cusub walaalayaal, maanta annagu waxaanu baahi u qabnaa tababar iyo diyaarin caruurteena iyo gabdhaheena iyo wiilasheena aan ugu diyaarinayno dhanka iyo guurka. adiga haddii aad rabtid inaad aalad wadid, haddii aad rabtid gaari inaad ku wadid wadooyinka adduunka meel ka mid ah, waxaa habboon inaad soo qaadatid shahaado, waxaa habboon inaad u tababartid sida loo wado gaadiidkaas. haddii aad rabtid inaad wadid diyaarad iyo waxyaabaha noocaas ah, waxaa habboon inaad u qaadatid tababar. adiga walaalayaal, hadda waxaa jirta haddii aad rabtid inaad qaadatid inaad dheeshid banooni, dowrooyin iyo tababar waxaa jira lagu barto sida loo dheelo banooniga. sidaas oo kale dabaasha dowrooyin iyo tababar loo qaata jiro. ayib, guurku ma u baahna miyaa tababar? guurku ma u baahna miyaa in la barto caruurteena intaysan u jeesan dhanka iyo guurka ka hor inay u tababartaan? ma habboona miyaa? bil ka hor sheekh doctor maxamed khayr shacaal ayaa waxa uu yidhi, bil ka hor anigoo xaafadeeda u socdo ayaa taleefankeyga soo dhacay. taleefanka markuu ii soo dhacay waan ka jawaabo oo waan qabtay. waa wiil dhalinyaro ah. wuxuu ugu dhahay, sheekh doctor maxamed khayr shacaal miyaa? haa ayaan ku iri. kadib wuxuu ugu yidhi, waxaa rabaa sheekhii mawduuc aad muhiim ah inaan kaala tashto oo kaala hadlo. kadib sheekhii wuxuu yidhi, waxaa ku dhahay, hadda anigoo mashquulsanaha gaarigan wadaa, xaafadda markaa tago nus saac kadib isoo wac. sheekhii yarka wuxuu ku yidhi, anigu waa degdegsanahay, aad baan u degdegsanahay, waxaa rabaa inay hadda dhacdo, laga maarmaan waayo. kadib wuxuu ku yidhi, maxaa waaya ciwaanka waxa aad rabtid? kadib sheekhii cunugu wuxuu ku yidhi, waxa aan rabaa furiin. furiin nooco ah? furiin xaaskayga inaan furo. yarkan 10 daqiiqo ayuu sugi la'yahay xaaskiisii inuu furo ayuu rabaa. 10 daqiiqana ma sugi karo. sheekhu wuxuu yidhi, guriga markaa tagay taleefanka ayaa igu soo celiyey, waa ka qabtay. waxaan ku dhahay, meeqa sanaa jirtaa? kadib wuxuu igu yidhi, waxaa jira 22 sano. waxaan qiyaastay in xaaska uu qabo ayaduna ay jirto 16 ama 17 sano jir ugu badnaan. kadib sheekhu wuxuu yidhi, waxaan ku dhahay, ma guursatay oo heshiis guurkiini ma dhacay aqalgalkiini? kadib wuxuu ku yidhi, maya, caqdigii heshiiskii bas ayaan dhacay 3 bilood ka hor. 3 bilood ka hor bas caqdigoodii oo dhacay, weli aysan isla aqalgalin, inuu u furo rabaa. 10 daqiiqana ma sugi karo iyo 30 daqiiqo gudahood. furiinkaas caruurteena, gabdhaheena, wiilasheena waxay u baahan yihiin ee baahi u qabaan tababar. annagana mas-uuliyad ayaa naga saaran in caruurteena iyo wiilasheena iyo gabdhaheena aan ku caawino oo u tababarnaa dhanka iyo guurka. haddii kale waxaa lumayso cifadii iyo dhowrsanaantii. haddii kaleeto waxay ku dhacayaan amarro ilaahay subxaana wa tacaala uusan ka raali noqon. sidaa darteed ayay barnaamijyadan u noqdeen barnaamijyo ku saabsan tababarka dhanka iyo guurka. xalaqadii hore walaalayaal, waxaan uga soo hadalnay arrimo horudhac u ah dhanka iyo guurka, horudhacyo muhiim ah xukunka guurka, waxyaabahaas islaamku inoogu yeerayo guurka, waxyaabaha dadka ku riixa guurka, tababar isku diyaarinayo, xaaskaaga sidee u dooranaysaa, gabadhu sidee u dooranaysaa ninkeeda. maanta waxaanu bilaabaynaa amarka camaliga ah ee koowaad ee maxaa la dhahay tilaabada koowaad ee loo qaada dhanka guurka ah. marka aad u diyaar garowday ee maxaa la dhahay xaaskaaga dooratay doorasho fiican, amaba gabadhu dooratay ninkeeda, kadib maxaad samaynaysaa weliho? maxaad samaynaysaa? waa maxay tilaabada koowaad ee aad ku dhaqaaqaysid? ciwaanka xalaqadeenan maanta waxaa waaye doonashada. hadda waa maxay tacriifka doonashada? tacriifkeedana ila dhageyso walaalayaal oo ka dhadhaminaya tacriif wax badan ka dhadhansada tacriifkan maxaa yeelay waa muhiim waxaana ka dhashto ahkaam
wiil kasta iyo gabar kasta iyo waalid kasta oo dhalay wiil ama gabar in uu barto xukuumada iyo waxyaabaha ka dhalanayo khidbadan. khidbada tacriifkeeda waxa waaye rabitaanka muujinta rabitaan aad rabootay maxaa lahay gabar idhaaru raqba inaad muujisid rabitaan. khidbadu maahan guur, khidbadu ma xalaaleynayso wax awal xaraan ahay. doonashada gabadhan aad doonashay wax kuma banaynayso, gabadhan aad doonato wax awal ka xaraan ahay oo ku banaysmaayo ma jiraan. doonashadu kaliya waa ballan aad ballan qaaday inaad gabadhan guursanaysid, guurna ma ahan. qawaaniinta wadamada carabta qaar ka mid ah wadamada islaamka ah khidbada doonashada gabadha la doonanayo iyo faatixada la akhrinayo qiraa'atul faatixa mararka qaar waxay akhriyaan ehlada faatixa suuratul faatixa. suuratul faatixadaas iyo doonashada la doonanayo iyo in loo soo labiso gabadhii maxaa la dhahay iyo wiilkii ama farhaanti isku gelis laftirkeedii la sameeyo. doonashada quraanka la akhrinayo, faraantiga la gashanayo iyo hadiyada la aqbalayo haddii hadiyad uu keeno iyo wasalaam almahri qabla almahri iyo meherki in uu qofku gabadhu qaadato meherka ka hor. intaas oo idin la tuctabaru zawaajan guur laguma tartamo ma lagu tiriyo. guur maahan doonashadu. suuratul faatixa in la akhriyo ilaahay amarka nafdayla loo guur maahan. in maxaa la faraanti isku geliyo guur maahan. hadiyad in iska aqbalano guur maahan. in meherki gabadhu qaadato meherki ka horna guur maahan. doonashadu kaliya waa ballanqaad aad ballan qaadaysid in gabadhan aad guursanaysid. sidaa darteed marka wiil kasta ha ku baraarugsanaado gabadhan weli waa gabar kaa fog. gabar kasta ha ku baraarugsanato wiilkan ku soo doontay ilaa iyo hadda waa wiil kaa fog. asaga wuxuu rabaa oo kaliya in uu ku guursado. wuxuu idin ballan qaaday adiga iyo ehelkaaga in uu ku guursado. guurku wuxuu dhacayaa xukmiyan iyo sharciyan iyo qaanuuniyanba loo qaadanaya inuu guurkaas dhacay markii wiilkaas uu dhaho ii guuri oo aabbaha uu ku dhaho ii guuri gabadhaada aabbahana yidhaah waa ku guuriye. inta halkaa ka horeyso waa rabitaan un. wuxuu muujinayaa inuu rabo inuu ku guursado. hamarkaas waa mid aad muhiim ah. tacriifka doonashada waa mid aad muhiim u ah. doonashadu kaliya waa muujin aad muujinaysid imra'a mucayana aad guursanaysid. hadda yaa ku banaan haweenkee ku banaan inaad guursatid ma waxa awooda inaad guursatid haween kasta u baahatid. waxaa ku banaan doonashada haween ku sifoobay sifooyin ka mid ah 4 sifo ee soo socoto. midda koowaad inaysan noqon allaa takuuna muxaramatan xurma mu'abada. waxaa jiro xukun sharci islaamka haween ka xaraan ah xurma mu'abada ilaa yawm alqiyaama xaraan ka ah. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay ila tiriya xurrimat calaykum ummahaatukum. hooyada waa ka xaraan, hooyada ma guursan kartid. wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatul akhi wa banaatul ukhti. hooyada gabadhaada walaashaada habartaada eedadaada gabadha abtiga u tahay iyo gabadha adeerka u tahay intaasoo idil waa haween ka xaraan ah xaraan ila abad ah. intaas oo kaleeto oo min radaaca kaaga imaatay ayagana waa ka xaraan. ummuka min radaaca ma guursan kartid hooyadii ku nuujisay, ma doonan kartid mana guursan kartid. haddii haweeney ay maxaa la dhahaa nuujiso cunugaasi uu weynaado oo nin weyn noqdo ma guursan karo hooyadiisaas nuujisay. ukhtu min radaaca walaasha hooyadeed ku nuujisay haddii wiil ama cunug yar la nuujiyo hooyadaas nuujisay cunugaas ilmahaas ay dhashay way la dhasheen wiilkan ama gabadhan ma ka guursan karo qoyskaas. min radaaca ukhtu min radaaca bintu min radaaca. intaas oo idil 7 intii aan sheegnay intooda kaleeto oo maxaa la dhahay min radaaca ayaguna waa ka xaraan xurma min abad عمتك خالتك sidaas oo kale ibnatul akh wa ibnatul ukh intaas oo idil oo min radaaca ka imaaday waa muharramaat ala ta'bid. intaas waxay ahaayeen kuwii hore waxay ahaayeen muharramaat min an-nasab nasab ahaan kuwa kaaga xaaraantimay. kuwana waxa waa kuwa kaaga xaaraantimay min radaaca. kuwa waxa jira ayagana kaaga xaaraantimay min musahara. gabadha uu qabo wiilkaaga cunugaaga xaraan ay ka tahay. hooyada gabadha aad qabtid ayadana صدقها أيضا حرام أي كاته من المصارع حرام كاته. وبنت الزوجة قبل أي شيء حاسك عقبتنا أيضا حرام كاته. سيدا سوكلا حاسك وسوغور سيدا أباها ولا تنكح ما نكح آباؤكم. هدي آباء وسوغور سيدا وين كالت أو هيدا عن وكدب من أوفرو هيدا بوس كده يكون جوكتا مغور سكرت. أنت أسوأ محرمات على التأبيد كم بنانين غورست.
muqdada radaacada walaalayaal waxaa jira amar muhiim ah oo inaan ku baraarugsanaano ay habboon tahay haweeneyda uma banaano in ay nuujiso cunug yar ilaa idinka zawjkeedii ilaa inay ka idin qaadato zawjkeedii ma ogiye inay ku dhahdo ninkeedii waxaan rabaa inaan nuujiyo cunugan tusaale ahaan oo kale cunuga habrirteed ee dhashay walaashiis ee dhashay waxaan rabaa inaan nuujiyo oo 7 6 8 nuujin oo daba xigta aan nuujiyo waxaa habboon haweeneydaas inay u sheegto dariskeeda ninkeeda qaraabadii ee ogeysiiso ninka wiilkan cunugan yarka ah waxaan nuujiyay 7 6 8 jeer wuxuu noqdo cunugayga oo kaleeto ilaa ehelkii cunug inta weynaado ehelkii wixii isku dhex qasmaan oo cunugii familka ku soo laabto oo gabar ka guursado ehelkii iyo qaraabadii kadibna dhacdo in ayaamo kadib bilooyin iyo sanadooyin kadib la ogaado in wiilkan oo ahay mid ehelka soo galo oo gabadhan ka guursan karin oo min radaca ku imaado xukunka sharcigan wuxuu yahay gabadhaas uu guursaday asaga waa la kala diraya kuwaas waxay ahaayeen kuwa ka xaraan ah min an-nasab iyo min al-musahara iyo min ar-radaca waxa ku habboon in waxaad guursan kartaa kuwa aan ku sifooyinkan afarka ah midda koowaad inaysan noqon kuwa ka xaraan ah xurma abadiya midda labaad xurma muaqatiya inaysan noqonin waxaa jira haween ka xaraan ah xurma muaqatiya oo waqti ku saleysan ilaa iyo waqti ka xaraan ah tusaalahan oo kale ukhtu zawjati wa ammatuha wa khalatuha gabadha aad qabtid habrirteed walaasheed iyo maxaa la dhahay eedadeed intaasoo idil waa ka xaraan waxay xaraan kaaga yihiin ma ku banaana inaad kulmisid gabar iyo habrirteed gabar iyo eedadeed gabar iyo walaasheed haddii aad gabadhaas furtid waxaad guursan kartaa maxaa la habrirteed ama walaasheed ama eedadeed mid aad rabtid laakiin inta aad gabadhaas qabtid ma guursan kartid eedadeed ama habrirteed amaba walaasheed zawjatul ghayr sidaas oo kaleeto xaraan ay ka tahay zawjatul ghayr maadaama ay zawj tahay ay xaas u tahay nin kaleeto xaraan ay ka tahay ma guursan kartid amarkan waa mid muhiim ah walaalayaal inaan ku baraarugsanaano waa mararka qaar waxaa dhacdo in gabar ninkeeda iyo ayada xoogaa yar oo doodii isqabsi yar ka dhaxeeyo shaqeyso gabadha shaqada markay tagto asxaabta shaqada la wadaagta ee nimanka ah markasta waxay uga sheekeynaysaa dhibaatooyinka guriga ka jira dhibaatooyinka ayada iyo ninkeeda ka dhex taagan aniga ninkeyga saasoo yaala halkaasoo ka dhaca dhibkaasoo ii geysa halkaasoo yaala waxaa laga yaabaa inuu u imaado nin la shaqeeyo oo asxaabtii la shaqeeya ka mid ah oo ku dhaho wallaahi adiga haweeney gabar fiican baa tahay maxaa lahay ninkan iska fur wuu ku dhibay aniga ayaa ku guursanayo kinkaas wuxuu ku dhacay xaraan wuxuuna ka baxay daacadii rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu calayh haddii uusan soo toobad keenin rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu calayh wuxuu leeyahay laysa minna man khabbaba imra'atan calaa zawjiha ninkii ku dhaho gabar ninkan iska fur ninkan kuma qalmo ninkan saas wuu ku yaal ninkan maahan waxaa la sheegaa mararka qaar inuu nin la soo hadlayo xaas oo asaga qabin gabar xaas ah oo nin kale oo qabo ayadana uu sheeganayo dhibaatooyinkiisi ayadana ay u sheeganaysa dhibaatooyinkeedii xaraan waayo walaal intaas xaaska la qabo waa xaraan inaad shukaansatid waa xaraan inaad la hadashid oo wax ku darsatid shukaansatid waqti la qaadatid maadaama ay maxaa lahayd nin kale xaas u tahay islaamku wuxuu sharfay acraabta wuxuu sharfay nasabka maahan inaad ku xadgudubtid mana rabo islaamka in adoomada qaarkood iyo adoomada isku dhex darsamaan waxaanu dhamaystiri doonaa haweenka ay ku banaan tahay doonashadooda goosgooska kadib